mar walba hurdo ka soo kaco waxaa soo kaca anigoo indhahayga ilmeynaya mar walba sababteedu waxay la tahay in aan riyo cajiib aan ku jiray riyadaas oo ku dhex noolay mar walba hadda isku day inaan soo xasuusto ma awoodi kar maskaxdeeda inuu soo celiyo mar walbana waxaa moodaa qof noloshayda qaali ku ah in riyada gudaheeda ula kulmay hadalkaasna waxaa dhaxay laba ruux aad u kala fog laakiin qalbiyadooda aad iskugu dhow yihiin Miss Soha iyo Taiki salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh saaxiibayaal dhammaantiin waa salaam saa u jeedin filim aad u qurux badan maanta ni soo bandhigay filimkana qisadiisa iyo xiisadiisaba aad u fara badan yahay faaraxyo badan iyo xariimooyin badan waa ka heli doonaan intaasna waa kaftan laakiin waxaa sidaas u leeyahay laaya fara badan oo filimkan gudihiisa ka dhex dhici doono waana arki doontiin insha Allah si ay u bilaabo nagu saliya xabiibkeen Maxamed sallallahu alayhi wasallam filimkeena aad u macaan noo bilaaba habeenada kamid ah wiil ku sugan magaalada Tokyo oo wuxuu arkaa dhagax aad u nuur badan oo cirka ka imaanayo sidoo kale gabar magaalada Tokyo aad ugu fog oo meel tuulo ku nool leh ayadana way ku nuursanaysaa dhagaxana boqolkiiba hal mar oo imaadaaba waana qurux labadan qof aad ugu raaxaysteen qisadooda mahane ka bilaabanay Miss Soha Miyamizu waa gabar high school ah oo secondary ah oo degan tuulo aad u fog oo lagu magacaabo Itamori hooyadeeda goor hore geeriyootay tuuladan waxaa madax ka ah aabaheeda laakiinse aabaheeda mar walba wuu ignore gareeyaa wuxuu u dhaqmaa gabdhaha inuuba dhalin baxta laakiinse Miss Soha ehelkeeda oo dhan ma wada xumee waxay la nooshahay ayeedeeda iyo walaasheeda yar labadoodana ayeedooda soo korisay Miss Soha nolosheeda waa iska sidaas mar walba subax walba way soo kacdaa iskuulkeeda aadawayna ka soo laabataa ha soo kacdo ma xumee laakiinse maalin walba maalin dhaaf walaasheeda mar walba waxay dhahdaa adiga mar walba sida hore mu dhaqmaysid maxaa waaye maalin alaakiina sida kugu aragna si ka duwan mar walba u dhaqantaa maxaa waaye Miss Soha walaasheeda hadalkeeda ku wareey kadibna asxaabteeda iska raacay laakiinse daawada waxa ka yaabina asxaabteeda xataa waxay dhooyin Miss Soha aqaani hadda noo muuqataa shalay qof kale ahaydba Miss Soha markii hadalkooda maqashay aad u yaabay markaas ay fahmay inuu maaha wax qaldan yahay saaxiibadeeda waxay leedahay shalay soo dhaqmaysa anukaaba yaabnaba timahaada isku darsoonayeen sidoo kale si waali u dhaqmaysa maxaa was Miss Soha xataa magacaaga umadu way weydiinaysaa xataa magacaaga xataa ma xasuustid kaalmo soo waalad adiga Miss Soha waxay leedahay waxaas ashigiisiin waxba kuma ogi laakiin shalay waxa laga yaabaa inaa aad u daalnay habeenka markii la gaaray Miss Soha waxay sameynaysaa hidde dhaqameedka tuuladooda caan ku ah oo habeen dhaaf loo sameeyo Miss Soha waxa laga rabaa inay sameeyso wax yaro taliin ah kadibna dheesheedu ayagoo gaar u ah markaas kadibna waxa laga rabaa inay sameeyso cabitaan loo yaqaan saiki oo lablaba ah oo bariis laga sameeyo la calaajinayo garabma labadan waxay ka dibacsan yihiin hadii dhaqameed oo sidaan oo kale weligeed ma arkin muhiimadeena marka uu soo laabano Miss Soha iyo walaasheeda banaanka isku raacayeen aydan dharka iska soo bedelayeen markaasna waxay leedahay waxa ilaahay hal mar ka bari lahaa in tuulada hal mar ka buuxa ku noolaa magaalada caasimadda Tokyo hadii aniga taas asameey karo waxa raba aniga wiil inaan ku noolaado oo nolosheeda waqtigeyga oo dhan maas ku qaato yaa Miss Soha ma hadalkaas ka wadaanay adoo gabar maas aadi kartaa ana wiil ma ka wadaa subax markuu waaga bariyo Miss Soha hurdada ay ka soo kacdo oo qofka jirkeeda ku jira Miss Soha maaha waa wiil lagu magacaabo Taiki oo yacni Miss Soha ruuxeeda hadda jirka kuma jiro wiilaba ku jiraba wuxuu taagan yahay maxaa waa gabar ma isku bedelay maxaa dhacay waxaan xabadkeyga ka muuqdo maxaa waay oo war faaraxo arimahaas galin waxaan shaqo kuma lihiiday halka dhanka kale Miss Soha ay ku soo kacay wiilka jirkeeda ku sugan jirkiisa oo yacni daawada labadoodu waxay isdhaafsadeen jirka wiilka wuxuu ku sugan yahay Tokyo halka Miss Soha ay ku sugan tahay tuulada oo hadda Miss Soha Taiki noqotay Taikina Miss Soha noqday oo war waxaan cajiib ka arka Miss Soha waxay taagan tahay waa maxay jirka aniga ma ahabe waxaan iga hooseynaa maxaa waaye war maya ka joog Miss Soha waxaan arimaan ma ahan ka joog xaliim fudeedka daa waxa aragto waa heshii Tokyo waa joogta wiilna waa noqotay Miss Soha daawada intee istaagtay miyaarad intee tagtay ilaa hadda waxa ka dhaadhic lahaa inay wiil tahaba wiilkaas waxa lagu magacaabaa Taiki asigana waa wiil secondary school magaalada Tokyo ka dhigto waxayna guri isla nool yihiin asiga saaxiibkiisna wuxuu ku leeyahay maanta quraacda ana ka sameeyay Taiki laakiin hurdada waa ku dheeraata maxaa waaye Miss Soha way yaabay waxayna ugu jawaabay aad u daalan laakiin daawada waxaan ka yaabinaa labadoodu waxay u qaateen riyo oo hadda waxaan ay ku jiraan riyo u malayaanba labadooduna hore u soconayaan qaabkii hadda tahay u dhaqmaayaan oo yacni ma dhahayaan ani Miss Soha mihi Taiki mihi wax soo kala ma dhahayaan hore u sii soconayaan Taiki Miss Soha waxa laga rabaa inuu iskuulka aado oo tago laakiin say iskuulka ma ku tago rabsho wa sameynaaba oo asaga dhan wuxuu u dhaqmaa sida wiil oo kale dhamaan wixii iskuulka joogay dhan waa ka baqooyeenba Miss Soha waa leena soo laabatayna Miss Soha sidaa ma ah waa gabar aad u maskiin iska degan halka dhanka Miss Soha laga rabo jirka Taiki inuu ku aado iskuulka sidoo kale shaqo leeyahay shaqadaas in aada laga rabaa asxaabtiisu waxay leeyihiin kaale maanta kiyada tahay Taiki maxaa saa u dhaqmaysidne qof xishood badan ma noqotabe Miss Soha waxay ugu jawaabtay ma taqaanto waa weligeed wiilal ma la hadlin laakiin asxaabtiisa waqti la qaadanay sidoo kale cafeteria oo cunto kooda cunayaan Miss Soha waa ogtaa gabar waaye aydan waxa waa cuntadiisa warka qad qaaday mar walba waxay taagantahay riidan caadi ma ahanba waa ka helaba ayagana aad u leeyahay waa maxay Taiki ma soo dhaqmooyo markaas Miss Soha message u soo dhacay messageskaas waxa waa goobta shaqada waxay leedahay waa la hoogay xilli shaqada la gaaray ayagana waxay leeyihiin waa shaqadaada aad markaasna waxay leedahay Miss Soha shaqada intee ku taala yaa ayagu waxay leeyihiin maxaa waa Taiki maanta waxa kugu dhacay u sheegayaan markaas Miss Soha goobta shaqada markay tagtaa ayda aad u wareeray shaqada Taiki qaban jiray waana lagu dhibaa waxay leedahay riida weyna macdahay waana dhib badan tahay ilaa hal mar la ii kici mariyada inaad dhibsato ma bilaado waayabe markaas kadib daawada maqaayad waxay maalaan laba nin fooda inay ka kiciyaan si customerka u wada tagaan dadka dhameesha wada joogo diiradda inta uu caan waxay leeyihiin cuntada cayaana ku arag
aragna hadda anaku sheegnana dadka maahan joogo dhan way ka cararayaan ee waxa anu ku rabno noo sameeyay markaas mudiirada waxay leedahay waxba ha sheegin waxa rabtiin waan sameeynaa markaas ninkan wuxuu waa madiinta soo baxsado dharkeeda ka jeexaaba gabadha maqaayada iska leh maba dareemayno markaas kadib dadka dhamakay wada baxaana tayka u sheegay maya misuha u sheegayso ayadana mudiirada markay dareemto Muhammad isla yaabay laakiin misuha inta hamar wada qolka gelinayba waa isku maleesamay ay in tayka tahay wiil ee taaba misuha dharkeeda mudiirada ka qaaday waxay ugu tolay si qurux badan ma ka jeexeen markaasna ayda aad u yaabay waxay leedahay mudiirada aad u qurux badan yahay go'aan barata tayka waxaan loo talaayba taykiina markaas wuxuu leeyahay maya misuha waxay leedahay aniga waxaan xirfadeeda waayba mudiirada markaas waxay leedahay tayka maanta si kale u dhaqmoosaaba aniga aad u weyn maanta soo dhaqmoosay sida dumarka loo kasbadana aad u taqaantaa mudiirada markaasna tayka ma keenay misuha si u dhaqmaysa ka heshay markaas kadib ayda guriga imaanay shaqada markay ka soo bogto waxay bilaabay inay jiifato laakiin intay jiifan ka hor mobilka waxay ku qoreen noodkaas wuxuu qoray waxa qabtaa asxaab aad u wanaagsan nolol qurux badan sidoo kale qof aad u wanaagsan qabtaa ay ilaasho waana ku maasantahay doolashada maanta cune aad ugu raaxaysta hadalkaas wuxuu u jeedaa tayki gacantiisa waxay ku qoreen misuha si uu markuu asiga soo kaco u arko laakiin wali ayda u umleys waxaan riyo markaas kadib tayka subax markuu soo kaco gacanta fiiriyo wuxuu leeyahay maxaa waxan misuha gacanta u qoran laakiin iskuulku ku dahay xilliga iskuulka la jooga aad uu ordaa asxaabtiisa markuu la kulmay waxay ku leeyihiin maanta maxaa shaqadaad ma xasuustaa asigana wuxuu leeyahay maxaa hadalkaas ka wadaa uu kala wada dhalinyaro ay waxay leeyihiin maanta sidiisoo caadigu ahaan jiray u dhaqmooyaba maxaa waaye taykiina marka shaqadiisa oo aada laakiin wax wali ka maharay asxaabtiisu la shaqeynay waxay dhooyin kaala mudiirad in xiriir badan ma bilowdo tayki aniko ogeyn ma tayka sameeyay taykan wuxuu taagay ma aniga ma tasamay mudiirad ma xiriir la yahay nimayo adiga ma qaldintii ama soo waalateen mudiiradana marka u maad waxay leedahay shaqadiina gala sidoo kale tayki adana waa ku salaamay ayagana taas markay maqlaan aad u xanaaqayaan oo aad u maseerayaan halka dhanka kale misuha markay hurdada ka soo kacday ayda xataa gacanteedu qoran tahay yaa tahay taasna ayda aad u yaabta laakiin walaasheeda xataa hurdada markay ka soo kacday waxay leedahay ma taxawaay waxbaad ka ma mashquuloosin maxaa dhacay ayadana markay taas naqasho aad u naxay ardayda xataa isku galaasiin xataa markay isku ka imaato xataa way ka yaabayaan misuha saaxibadeed waxay ku leedahay waxa maxay indhaha la raacayeen saaxibadeed waxay leedahay misuha waxa shal waxa sameysay ma ogid miya meesha artistka iyadoo la jooga amar dadka inta ku dhex qasta wali fooda ka sameysay ma ogid miya waxa sameysay misuha waxay leedahay ruuxa ku sameeyay ani ma sameeynin ba macquul sidee ku tahay markaasna waxay dareemay in ayada markaas jirkeeda la bedelo wayba oo jirkeeda wiilka ahaydba oo Tokyo ku sakan u bedel mooyba markaasna misuha inta soo orday guri ord ugu tagay waagteed markay gidgidiso waxbarashada waxay arkay qoraal far badan oo ku qorarba oo ku dhidheelaba wuxuu ku qorayaa tahay nolosha maxaa waa hota adiga inta ka socota inta ka imaatay taykiina mobilkiisa uu gidgidinaya markaas kadib oo labadooda waxay dareemayaan inay jirkooda isdhaafsanayeen waxay leedahay wiilkaas ma aad jirkiisa dhaafsanaya asigana wuxuu leeyahay gabadhaas ma aad jirkeeda dhaafsanayaaba waxaas macquul ma aha waa maxay mucjisadan waa wax la yaab ah runtii markaas kadib daawada labadooda waxay dareemayaan isbuuciiba in laba jirkooda isdhaafsanayaan waxayna dareemayaan labadooda in laba qof isku fac inay yihiin tayki wuxuu ku sugan yahay magaalada Tokyo halka misuha ay ku sugan tahay meel tuul aad u fog sidoo kale daawada waxay bilaabayaan masajida mobilka in isku reereebaan markay jirka isdhaafsanayaan isbuuci labada jir waxayna bilaabayaan shuruuc gaar labadooda ah inay sameeyaan markay jirkooda mucjisadan ay ku dhacayso asiga wuxuu ku leeyahay yare maalkayga iga khasaarinaysa iga joojiya doorashadii waxa ku cunaysid misuha waxay leedahay adiga hata waa maxay buwaagteed waxa ku qorqoraysid sidoo kale jirkayga waxa rabta kama sameey kartid asiga wuxuu taagan yahay sababta mudiirada xiriir uu sameynaysa maxay tahay anima ka dalbad arintaas waxay taagantaa adaa ku dalinaya bahda xiriir ku sameynaya dib ma leedahay asiga wuxuu taagan yahay war idhaaf xaliiba maxaa ka qaldan mudiiradeeda waaye shaqada in laga buriyo ma rabtaan markaas kadib daawada misuha waxay leedahay faarax oo shaqada hada laga burin aarabin jirkayga wax foodo dagaal ku sameeynin mise anigana wax haraba sameeyna oo war labadan yaa kala qabtanay asigana wuxuu taagan yahay saas ma tahay arig meeshaas ma waraysa ha anuu qaabana jidku hordaaba ayadana waxay taagan tahay carwa kaaya isku day oo war arinta meel fogi gaarta ku dheh arinta ari dhamaanaysa ma ahan filimkana aad u cajiib badan yahay qisadiisna aad u macdaaba misuha ay tayki shuruudaha ma ku dhaqmi doonaan ma ku heshii doonaan mise dagaalka sidaan u sii socon doonaa sidoo kale isbedel jirkoodana saama u soconaa waxaas oo dhan waxa ku arki doona xalqadiina soo socota insha Allah daawada hadda xalqadan ka heshay like tii subscribe kana ugu leeyahay waan mahsantii saaxiib yaal magaciisu Cabbaas Janaka Cabbaasin Bay nabadgeliyo war kaale labadan si isku xali doonaan